Siyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibrahim Cumar Mahadale Ibrahim Dheere ayaa dhagax dhigay wadada degmada Xamar Jajab oo ah wada 800 mitir ah taasi oo maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay in lagu sameeyo dib u dhis waxaana wadadan la dhigayaa interloga si loo xoojiyo isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka isticmaala degmada Xamar Jajab. Siyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay wadadaasi waxa uu sidoo kale daafuray wada 400 mitir oo maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay in lagu xoojiyo isku socodka dadweynaha taasi oo lagu magacaabo waaxda Geheer. Wadadaasi oo hore u dhagax dhigay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Allah u naxariisto Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineeriso. Dhagax dhig kadib ayaa siyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ku dhiirigeliyay bulshada iyo maamulka degmada Xamar Jajab inay ilaashadaan dib u dhiska wadadan lagu sameeynaya. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir dhismaha lagu sameyn doono wadadani. runtii waxaa maanta sharaf weyn noo ah farxad noo ah in siyaha xilka duqa magaalada Muqdisho nala joogo isagoo nagu kormeeraya shaqada adag ee aan ka hayno degmada Xamar Jajab wadadii si madhuud oo interlog la saaraya oo dhamaatay iyo wadadan cusub oo Xamar Jajab oo dhagax dhiga maanta duqa oo siyaha oo nagu sameynayo runtii mudane gudoomiye waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee maanta aad nala joogtid sida maamulka gobolka Banaadir ay uga go'an tahay in la hormariyo guud ahaan caasimadda gaar ahaan degmada Xamar Jajab oo nasiib u yeelatay inay noqoto degmadii ugu horeysay ee interlogan la dhigo. Siyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibrahim Cumar Mahadale Ibrahim Dheere waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dardargelinta adeegyada asaasiga ee bulshada isagoo dhanka lagu baaqay bulshada caasimadda ku dhaqan inay ka qayb qaataan iskaashiga lagu xoojinayo amniga iyo sidoo kale bilic soo celinta magaalada Muqdisho. waxaa maanta farxad noo ah inaan dhagax dhigno wadada Xamar Jajab taasoo keentay baahi loo qabo isku socodka dadweynaha. waxaan kaloo aan ka jarnay xariga wado dheer oo interlog ah oo la yiraahdo Simad taas oo aan ugu talagalnay jidka weyn ee mashquulka ah ee maradakada weyn oo runtii aad u biisi ah inay baabuurta kuwa raaxada iyo bajaajka ay maraan. runtii waxaa saaray guddi oo gobolka u saaray inay soo qiimeeyaan baahi kasta oo ka jirto degmo kasta. hadda Xamar Jajab baan maanta joognaa insha Allah waxaan wadnaa inaan wada kasta oo amba meel kasta oo ay baahiyo ka jirto gobolku inuu buuxiyo. gobolku runtii waa adeegaha shacabka wuxuu diyaar u yahay habeen iyo maalin inuu ka jawaabo baahi kasta oo ay shacabka keenaan. waxaan ka codsanaynaa dadweynaha ku nool gobolka Banaadir inay la shaqeeyaan gobolka xagga amniga iyo xag kastaba haddii uu yimaado iskaashi ka yimaado shacabka iyo madaxda gobolka Banaadir waxaa imaanayso in la helo horumar dhan kastaba ah. gaar ahaan waad ogtihiin xaaladaha uu marayo dalkeenna oo xagga amniga waxaa cajiib ah magaalo ay ku nool yihiin 3 milyan iyo bar in ka badan inay qaswadayaal 200 aan ka badnayn inay mar walba dhibaato ku hayaan gobolka Banaadir. marka waxaan aad uga codsanaynaa inay dadweynuhu ay nala shaqeeyaan anagana waxaan u helanahay oo habeen iyo maalin aan u joognaa in aan ka jawaabno baahidooda. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.